بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد ولا ليال سوركن الوسوق بيي بشر بركيسن فضلي آت وين أي لذا هاي إن شاء الله وربعين ستة ما توحي سوق عدي إن أي قرب استاكتو أغان تجي مساكين تدن يرتع إن أي عيد سيسو حقيقة ولا ليال دتكنا مقلايو عنو كأدي عد شيء أو فكرة سي أيا إنا أغانت لو فكرة لو بعين يهاي تصالح جودة أغانت وها عيسين كرتو غانو يا سروال يا حجاب أو سيدتي $1 شاتي أو سيدة $1 كبا أو شن $1 وجوار أغانا أو يعني دتك متوسط كمدحدحات كأوها يكون إيدان لو عيسين رواه qofku ilaahay subhanahu wa ta'ala goonada uu ka soo qaado ama xijaabka uu ka soo qaado ama shaati uu ka soo qaado oo kabaha uu ka soo qaado hadba qofka ala qudri taqatihi ayaa lagu soo dhaweynaya hal goono hada u gado ajraad ka helaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala na awalkeeda waa ka siinaya shar hada gado kadalika kabi hada u gado kadalika wiilka ku soo heraasine surwaal $12 lagu qiyaasay shaatina $12 kabahana $12 haddii shaatiga aad qabsanayso haddii kabaha aad qabsanayso haddii surwaalka aad qabsanayso haddii dhamaan aad la bixisanay oo ajru ku batilewa marka insha Allah ajirkaas yaan lagaaga hormarin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu bawli Allah subhanahu wa ta'ala markii sidaan oo kara khayrka loo sheego saxaabada nabiga kaleey salatu wasalaam way u degdegi jireen way u ordi jireen dhagta inay taagaan bay waxay dhigi jireen janna oo arduha samaawaat wal ardu janno oo balaceeda samaawaadkii arlada uu dhan yahay saasay dhigi jireen markaasay u istaagi jireen khayrka ay u ordi jireen ragga ku tartamay khayrka waxa kamid ahaa Abu Bakar iyo Umar kamid ahaa runtii Abu Bakar iyo Umar musaabaqa aad u dheer bay ku galeen markuu nabiga sallallahu alayhi wasallam oo wax sadaqaysto uu dhahay Umar radiyallahu anhu وابحي غريغيسو tagay xoolihii uu soo qaaday wuxuu yaani ku goodiyay in uu Abu Bakar uusan aaga hormari doonin sadaqadan oo Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu baahiyay markaas uu guri inuu tagay xoolihiisa uu soo qaaday qaybna ilmaha uu soo tagay qaybna uu soo qaaday rasuulku uu keenay ilaahay dartii rasuulka dartii uu bixiyay markuu tagay Nabiga alayhi salatu wasalaam Umar uu weydiiyay wuxuu yiri ilmaha maxaa uu soo tagtay amaalka laba uu soo qeyb uu yiri qayb ilmaha uu soo tagay qaybna waa soo qaaday ilaahay dartiisaan uu soo bixi buu yiri Abu Bakar ay yimid maalkiisa dhan asagoo xambaarsan guriga ka soo qaaday nabiga uu keenay alayhi salatu wasalaam markaas uu weydiiyay nabiga alayhi salaam wuxuu yiri Abu Bakar oo ilmiya uu soo tagtay ilaahay rasuulkiisaan uu soo tagay maalkan dhamaantiisna ilaahay dartiisaan uu bixiyay markaas Umar wuxuu gaaray inuu yiraahdo maanta wixii ka dambeeyay aan la tartameynin Abu Bakar radiyallahu anhu marka walaalayaal sadaqada aan u soo dhaqtagno maanta haddaad marashayso ruux agoon aad dhar u geliso ilaahay subhanahu wa ta'ala adina bir qiyaamaha ayuu dhar ku gelin doonaa jannada dhar ku gelin doonaa ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaad maanta beeratay birito aday ka horeeyaan marka walaalayaal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu waxa alla waxaad baxsataan oo khayr oo wanaag oo maalkiina aad ka bixisaan ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa aad ka helaysaan maanta halka $1 aad bixisay $1 waaye agtaada $1 oo ka yahay laakiin bir ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa waxa ka helaysaa asigoo halkii $1 ka qiimo badan kana ajir weyn markii insha Allah dhageystayaasha na maqlaayo yaa gabadhan agoonta u gadaayo goonada iyo xijaabka iyo shaatiga iyo kabaha yaa u gadaayo yaa faatixada loo mara yaa ilaahay dartii wax ugu bixinaa agoontan oo wax u qabanayo yaa wiilkan surwaalka $12 joogo iyo shaatiga $12 joogo iyo kabaha $12 joogo yaa u gadaayo yaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawaanayo yaa ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad ugu dalbanayo sadaqadan walaalayaal ala soo dhaqtam insha Allah sadaqadu maalka ma dhamayso way kordhisaa laakiin bani aadamku shaytaana ku xariiro wuxuu ku leeyahay ha iska dhiibin maalka faqiirad noqonaysaa الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء شيطانku wuxuu ku yawaahaya faqiirtanimo wuxuuna ku farayaa xumaan marka ha ka yeelin nafta ka soo qaad shaydaanka warkiisa iska dhaaf
كالسحوق سوتا نفط وحيابها خيريات كاللبحنا ما أقول لكن قفك إلهي سبحانه وتعالى وإيمان سيئي نفتدي سوا كالسوق هذا وكالسحوق ونبحنا مرك إن شاء الله حنونا نهاية صدقنا ونيونو إلهي سبحانه وتعالى ونغاضي مرك النبي عليه الصلاة والسلام حوليه هاي داو مرضاكم بالصدقة حنون دينا كداوية صدقة مرك خوف كستو حنون هايو إلهي حنونك هكا قاضو صدقة وبحسنها ونيودو إنه إلهي سبحانه وتعالى وكذا برنامج كذا si loo yareeyo oohinta caruurta agoonta rajada iyo masaakiinta ka qayb qaado barnaamijka ciisiinta agoonta iyo kuwa mudan ee shaashaakeer barnaamijkan waxa uu ku damaanad qaadayaa in sadaqadaada ay gaari doonto kuwa aad u bixisay haddaba ku ciisi wiil agoon ah mid rajo ah ama mid maskiin ah $35 si la mid ah cunuga dabaqada dhexe ama 25 si la mid ah cunuga dabaqada hoose fiiro gaar ah lacagtan waxaa loogu iibin doonaa surwaal shaati iyo kabo sidaas oo kale ku ciisi gabadha agoonta ah rajada ah ama miskiinta ah $46 si la mid ah sida gabdhaha dabaqada dhexe ama $35 si la mid ah sida ay u ciideysa gabadha dabaqada hoose fiiro gaar ah gabadha waxaan u iibinaynaa goono xijaab shaati iyo kabo Marwa Fertility Center xarunta daaweynta cudurrada taranka sida dhalmo la'aanta ragga iyo dumarka alla ayaa awlaadda bixiye hamiirada gogasha dhiciska dilinka burabiyoodka iyo xanuunada kale ee taranka fadlan nagu soo booqo xarunteena Muqdisho Taleex ama nagala soo xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda mahadsanid